Ma jiro wax ka awood badan qof qalbi jaban oo dib u dhisanaya naftiisa. Qofka wax laga carooda lagu sameeyo oo aan caroon waa dameer. Qofka lagu sameeyo wax lagu raali noqdo oo aan raali noqonna isaguna waa shaydaan. Dadka oo la wada furnaadaa waxay ku dhaxalsiisaa saaxiibo xun. Dadka oo laga wada xirnaadaa waxaa laga dhaxlaa colaad. Hana wada furnaan, hana wada xirnaan. Aqoonta ficil la'aanta ah waa isla weyni. Ruux kasta oo aan siiyay qadarin uusan mutaysan, waxa uu qadarintaydii lumiyay in la eg intii aan u kordhiyay maamuuskiisa. Haddii aad aniga si gooni ah iigu nasteexayso, waad ii nasteexaysay. Haddii aadse dadka hortooda iigu nasteexayso, waad i fadeexaysay. Qaladka iska nac, balse ha nicin qofka sameeyay. Qofka u malaynayo inuu ka nabadgelayo dadka carabkooda, kaasi waa waalan yahay. Ilaahay ayay dhaheen laba ilaah ayuu saddex ku yahay, subxaanallah. Nabigeenna ayay ku dhaheen waa nin waalan, sixiroola ah. Marka ma u malaynaysaa inaad adiga ka nabadgelayso dadkaasi? Cidna ha u joojin ee waddada alla hayso. Xaqiiqdii dad ayaa geeriyooday oo adduunyada ka tegay. Laakiin waxaa nool sharaftoodii oo weli magacyadoodii ayaa la hadal hayaa. Misena waa loo duceeyaa oo la ixtiraamaa iyagoo dhintay. Dadna way nool yihiin oo weli ma dhiman. Laakiin dadka dhexdooda ayay ka dhinteen iyagoo nool. Qofkii hadallada dadka kuu soo guuriya, hadhow buu adna kaa qaadaa hadal. Qofkii dadka kugu agxanta, hadhow buu adoo maqan ku xantaa. Qofka marka aad raaligelisid kugu sheegaa wax aadan ahayn, hadduu hadhow kaa xanaaqana wuxuu kugu sheegaa wax aadan ahayn oo xumaan ah. Qofka markuu hadalkiisa bato, waxaa bata dhacdhaciisa. Qofkii eed sheegashadiisa badato, saaxiibadiisa ayaa yaraada. Haddii aad eegtid meelaha la isugu yimaado oo khayrka leh, qofka ugu sharafta badan meeshaas waa kan aamuska badan. Maxaa yeelay aamusku wuxuu qurxiyaa qofka caalimka ah, wuxuu kaloo yareeyaa dhacdhaciisa. Walaalkaaga muslimka ah markuu kaa maqan yahay, khayrkiisa sheeg, sida adiguba aad jeceshahay in lagaa sheego khayr marka aad maqan tahay. Wiilkaygiiyow, diiqu yuusan noqon mid adiga kaa fiican. Maxaa yeelay salaada subax ayuu qaylayaa diiqu, adigana waad hurudaa. Haddii aad ka daasho samaynta camal wanaagsan, daalku wuu baaba'ayaa, laakiin ajirkiisa wuu harayaa. Haddii aad ku raaxaysato samaynta xumaanta, farxaddu way baaba'aysaa, waxaana haraya dembiga. Dadku waa saddex qaybood: kuwa ficilka iyagu sameeya, kuwa aan waxba samayn oo iska fadhiya, iyo kuwa yidhaahda maxaa dhacay, maxaa la soo sheegay. Saaxiibbada beenta ah waa sida harka oo kale. Had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ku jirto. Masaafada u dhaxaysa riyadaada iyo runta waxaa la yidhaahdaa ficil. Ha sugin in wakhtiga sax kuu noqdo si aad isbeddel u samayso. Ka bilow halka aad ku sugan tahay, waxa aad haysato, iyo haddadaan la joogo. Haddii aad saxan tahay, uma baahnid inaad xanaaqdo. Haddiise aad qaldan tahay, xaqba uma lihid inaad xanaaqdo. Dulqaadka aad qoyskaaga u muujiso waa jacayl. Dulqaadka aad dadka u muujiso waa xushmad iyo qadarin. Dulqaadka aad naftaada u muujisana waa kalsooni. Weligaaga aad ha uga fakirin wixii aad soo dhaaftay. Waxay kugu dhalin karaan xusuuso qaraar. Weligaaga si weyn ha uga fakirin waxa soo socda. Waxaad dareemi kartaa cabsi mustaqbalka ah, balse ka faa'iidayso xilliga aad ku sugan tahay, adigoo dhoola caddaynaya, Ilaahayna ku kalsoon. Imtixaan kastoo nolosha ah wuxuu ku tusaa walwal ama rajo wanaagsan. Dhib kastoo ku soo marana wuxuu kaa dhigaa qof jaba ama qof sii jira oo adag. Si kastaba ha ahaatee, qadarta Ilaah waa mid mar walba jirta. Doorashaduse waa dhankaada. Haddii aad noqon lahayd qof guulwade ah ama guuldaraysta ah. Dulqaad yarida iyo degdega waa xididada dhibaatada. Ma qasbi kartid nolosha inay ku siiso jawaabo ama sida aad rabto wax kasta inay u dhacaan. Waa inaad oggolaataa in wax kasta iyagu isfurfuri doonaan. Waa inaad aqbashaa in wax kasta waqti qaataan. Tus xushmad xitaa dadka aan u qalmin. Ma ahan ka falcelinta dabeecadahooda, laakiin waa sawirka bixinta adiga dhaqankaaga qadarinta ku dhisan. Carruurta qulubtooda waa nadiif, laakiin dharkooda ayaa wasakh ah. Dadka waaweyn dharkooda ayaa nadiif ah, laakiin qalbiyadooda ayaa wasakh ah. Kuwa Allah subxaanahu wa tacaala badbaadiyey mooyee. Ha ku dadaalin inaad dhisato guri weyn oo aad ku noolaato, laakiin ku dadaal inaad dhisato guri aad ku noolaato oo xasilooni ay ka dhex iftiimayso.
akhlaaq wanaagsan iyo alla ka cabsi. Awood uma lihid inaad beddesho muuqaalkaaga si aad u noqoto kan dadka ugu quruxda badan, laakiin waxaad awood u leedahay inaad beddesho dhaqankaaga si aad u noqoto kan dadka ugu akhlaaqda wanaagsan. tartanka u dhaxeeya libaaxa iyo deerada, marar badan waxaa guulaysata deerada sababtoo ah libaaxa wuxuu u ordayaa oo keliya cunto, halka deeraduna ay u ordayso nolol. xusuusnow in hadafka ka muhiimsan yahay baahida, ee ha noqon qof cunto keliya u orda. lacagta iyo guusha ma beddelaan dadka, balse waxay soo muujiyaan xaqiiqdooda. naftaada marnaba ma beddelmayso ilaa aad beddesho caadooyinka aad sida maalinlaha u samayso. kalsoonida ma ahan marka ay dadku ku aaminsan yihiin, balse kalsoonidu waa marka dadku ku aamini waayaan inaad adigu aaminto naftaada. ugu dambeey, sidee lagu jeclaanayaa? ilaahay wuxuu kugu jeclaanayaa inaad badiso cibaadadiisa iyo akhlaaqda wanaagsan. dadku waxay kugu jeclaanayaan deeqsinimo badan iyo wanaag aad u samayso. deriskaagu wuxuu kugu jeclaanayaa weji furnaan iyo dhaqan wanaagsan. walaalaha waxay kugu jeclaanayaan inaad xusto wanaaggooda iyo inaad ilowda khaladkooda. macallinka ardaydiisa waxay ku jeclaanayaan ku dadaalidda fahamkooda iyo u dabacsanaantooda. ardayga macallinkiisa wuxuu ku jeclaanayaa faham wanaagsan, ixtiraam badan iyo akhlaaq wanaagsan. qoyskaagu waxay kugu jeclaanayaan si fiican oo aad ula dhaqanto iyo mashaakilkooda oo aad fahanto. madaxdaadu waxay kugu jeclaanayaan shaqadaada oo wanaagsan iyo ixtiraamkooda aad badiso. ilaahay iyo ummaddiisa waxay kugu jeclaanayaan inaad samayso wax kasta oo wanaagsan iyo inaad ka fogaato wax kasta oo xumaan ah.